السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواad asxaabtaydii aad ayaan ii salaamayaa. waa maalin qurux badan, maalin jawi degana. waxaan jeclaystay inaan ila wadaago arrimo dhowr ah oon maskaxdayda dhex duurayay ama ka fikirayay, si gaarsiiya asxaabta kalena soo arkaan dhammaantiin hala gaarsiiyo. maanta waxaan ka hadli doonaa qaybaha qofka bini'aadanku uu ka kooban yahay iyo qayb kastaba sida loo koriyo, si ay asxaabta uga wada faa'iidaystaan hala gaarsiiyo. dhammaan asxaabta hala gaarsiiyo. waan falsafadoonaynaa, falsafo cusub ayaan soo bandhigaynaa, inkastoo horey looga hadlay, annaguna teena ayaan ku daraynaa. falsafadeenna waxay dhahaysaa maanta qofka bini'aadanka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. qayb kasta oo muhiimkayga ayay leedahay, qayb kastana dadaalkayga ayay u baahan tahay. qofka bini'aadanka qaybta koowaad uu ka kooban yahay waa jidh ama jidhkoo dhan, iyo ruux ku dhex jirta oo samaawi ah oo xagga alle ka timiday, iyo maskax. intaa ayuu ka kooban yahay. kadib markaas wuxuu noqdaa qof bini'aadana oo nool oo jiro ayuu noqonayaa. haddaba qaybahan 3 ee mid jidhka yahay, midna ruuxda tahay, midna maskaxda tahay, mid kastiba waxay u baahan tahay dadaal gaara iyo cunto gaara. jidhka markii la abuurayay ama ilaahay markuu abuurayay waxaa laga sameeyey dhoobo ama camuud ama dhoobo ayaa laga sameeyey oo dhulka ayaa laga soo ururiyey. kolba meel ayaa laga soo ururiyaa baa la dhahaa, oo sida dabeecadaha dadku iskugu dhow yihiin. dhoobada qofka laga sameeyey haddii isku dhowdahay ama macdanta ay ka samaysantahay isku dhow yihiin, qofka isku dabeecad ayaad noqotaan. qofka hadduu kaaga dhoobo duwan yahayna isku dabeecad ma noqotaan. waa falsafad kale. marka jidhku wuxuu u baahan yahay ama cuntadiisa, ama uu ku koraa, ama uu ku naaxaa, ama uu ku fiicnaadaa, ama uu quutaa wax dhulka ka soo baxo. waad aragtaan midhahaan cunaa, wax dhoobo ka yimiday ayuu jidhku naaxaa. haddii aad 2 cisho aad cuni weydid, 7 aad cuntayn weydid, jidhkaagii uu dhubnaanayaa, uu weydoobayaa, uu caatoobayaa. kadib waxaa lagu dhahaa qofkan maxaa ku dhaca, ma cuna miyaa? sidoo kale dharka aan xidhanayno, labiska aan xidhanayno waa wax ka yimiday dhul. marka jidhku markasta wuxuu u baahan yahay wax dhulka soo baxo. waata annagu soomaalidana aan ku dadaalo, qofka waan cuntaysiinaa, waan dharginaa, waan u labisnaa, inta kalena waan ilownaa. marka jidhku wuxuu u baahan yahay wax ka yimaado dhulka oo midho ah, cunto ah, geed ka soo go'ay, dhoobo ka yimiday. xataa xayawaanka dhooba laga sameeyo, dhul ayay ka yimaadeen. waxay u baahan yihiin wax dhul ka yimiday. haddaba ruuxdu maxay u baahan tahay? cuntadeedu waa maxay? ruuxda waxaa la dhahaa waxaa laga keenay xagga alle oo ilaahay xagga samada ayay ka timiday. kolka qofku dhintana samada ayaa loo qaadaa. marka ruuxdu iyadu waxay u baahan tahay cunto xagga alle ka timiday oo cibaadaad ah, qur-aanka ah, inaad xadiid dhegaysatid, daacaadka, qur-aanka, salaada, wax iimaani ah oo xagga alle ka yimiday ayay quudataa. markastuu qofku cibaado badan sameeyo, salaad badan tukado, ilaahay baryo, waxaa u biira iimaankiisii, waayo ruuxdii ayaa cuntaysay. siduu jidhkuba ugu naaxo wixii dhoobo laga sameeyey, ama wixii camuud ka yimiday, ama dhul ka soo go'ay, ruuxduna waxay ku naaxdaa ama ay quudataa wax xagga alle ka yimiday oo qur-aanka ah, ama salaada ah, ama cibaadaadka, ama daacaadka. marka qofku wuxuu la dhahayaa uu iimaan badan yahay, salaaduu tukadaa, waayo ruuxdiisii baa naaxday, ruuxdiisii ayaa nafaqaysatay, wixii cuntadeedii ayuu siiyey. qofka wuxuu ka joogsanayaa xaaraantii, buu ka joogsanayaa xumaantii, ayuu ka joogsanayaa. waxaa qabanaya iimaankii iyo naftiisii naaxday. qofku hadduu cibaadaadka iyo daacaadka hadduu ka fogaado, waxay ka dhigan tahay ruuxdiisii muu quudin. siduu jidhkuba u weydoobo ama u caatoobo marka uu cunto cunin,
ay iyaduna u caatowdaa markaasay xumaan kasta ay samaysaa. waxaa soo hadhay maskaxdii ayaa soo hadhay. maskaxdu maxay quudataa, maxay iyaduna cuntaa? haddaba maskaxdu iyadu waxay quudataa aqoonta, knowledge, aqoonta ayay quudataa, cilmiga. maskaxdu markay cilmi hesho way korodhaa, way ballaadhataa, way naaxdaa. siday ruuxduba ugu naaxdo waxa xagga alle ka yimiday ee taacaadka ay ugu naaxdo, jirhkuna uu ugu naaxo waxyaabaha dhooba ka yimiday ee ugu weynaado, ama dharka loo xidho ama cuntada loo sameeyo. intuba waxay naaxiyaan, ay qurux badneeyaan, ay bilic u yeelaan waa jirhkii. maskaxdana waxaa bilic u yeela oo qurux badneeya oo naaxiya oo kobciya waa cilmiga. markastood heshid cilmi ama aqoon ama waxbarasho fiican aad heshid, waxaa kordhaysa maskaxdaada. qofka khabiirka la dhaho ama expertska la dhaho waxay kaaga duwan yihiin aqoon ayay heleen, maskaxdoodii ayaa ballaadhatay, maskaxdoodii ayaa naaxday, maskaxdoodii ayaa nafaqaysatay. sidaas ayay ugu fududahay inay wax kastaba kaaga jawaabaan, wax kastaba ay baaritaan ku sameeyaan. marka waxbarashada aad helaysa ayay ku xidhan tahay. dadku waxay wada akhriyaan oo maanta sabankan maanta dadka wax akhrin u yar yahay, laakiin waxaan akhrinayno ayaa kala quality duwan, kala faa'iido badan. dad waxaad arkaysaa Facebook wixii lagu soo qoro akhrinayo oo cay ah ama qabiil cay ah ama israacay ah ama aflagaado inta akhrinayo. marka waa miscellaneous, wax faa'iido leh maaha, wax faa'iido leh ma akhrinayo. marka maskaxdiisa wax production ma sameynayso. qofna waxaad arkaysaa qof akhrinayo aqoon maskaxdiisu u baahan tahay oo wax cusub ku soo biirinayso maskaxdiisa. qofkaana maskaxdiisa ayuu ku kobcinayaa. markastoo qofku mas'alada adag uu ka shaqeeyo uu xalliyo ama uu isku dadaalo inuu qabto, waxaa ballaadhata maskaxdiisa. maxaa capacity waxa u yeelataa inay culays badan hadduu ku yimaado ay wax ka qaban karto. haddaba annagu Soomaali haddaan nahay hal mid ayaan ku dadaalaa, waa jirhka. waxaan rabnaa qofku inuu bilic qurux badnaado, inuu naaxsanaado, inuu dhalaalo, inuu cunto fiican cuno, inuu dhar qurux badan xidho. taana waxay ku dadaaleen waa jirhka keliya. waxaan hilmaamnaa laba arrin: ruuxdii cuntadeedii iyo maskaxda cuntadeeda. haddaba ruuxda waan tukanaa, waan cibaadaysanaa, iyada waa la siiyaa. si loo kala duwan yahay waan ku kala duwannahay. ta la hilmaamay ee loo labisin gaajoonaysa, caatada ah, liidata, liciifkaasi waa maskaxdeenna. wax ma barno, aqoon ma siino say u korodho. waa sidaasaa loo leeyahay qof aqoon-yahana oo naga soo baxo, qof taariikhyahana oo taariikhdeena noo qoro. waxaad aragtaa taariikhda Soomaalideena hadba meel loo tuuro. waxaad aragtaa Soomaalida waxa lagu dhahayaa carab ayay asal ku leedahay. maya, waa qalad. Soomaalida waxa lagu dhahayaa meel kale ay asalba male, dhulka way yimaadeen. waa qalad. Soomaalidu asal ayay leedahay. waxaa la waayay qof Soomaaliya oo taariikh la wax qoraa. sidaa daraadeed bay Soomaalidu ilaa imika bilaa asal tahay, ay meel ku abtirsata la leeyahay. asalkii hore Soomaalidana waxay u badan tahay ama saxduba ay tahay dadka quruumaha la dhaho. haddii aad maqashay kelmadda quruumo, waa asalkii Soomaalida. dad qora ayaa la waayay, dad taariikh ka reeba ayaa la waayay, waana asalkii Soomaalida. kushitig kadib maxay haayeen, waxay ka soo baxeen dad xardaarad leh. marka macnaha waxaan ka wadaa sababta loo leeyahay qof aqoon-yahan oo wax qora oo taariikh Soomaalida u reeba ama wax u qabta, waa ma korino, maskaxdeena ma korino. aqoonta aan leenahayna kadib haddii aqoon soo baratana waxaa ku yimaada maskaxda waxa la yidhaha inkimaash, way soo yaraataa. aqoontii aad lahayd ay baratay haddii aad hoos ula soo dhaadhacdidood qabiil iyo meel hoose iyo kadib aad fadhiisatid, isla maskaxdii ballaadhatay ee aqoonta baratay waxay ku soo laamaysaa isla halkaas shalay aad ka kaxaysay. waayo min 0 ilaa waxaad gaarsiisay 100, haddana waxaad ka soo laamaysaa min 100 ilaa 0. haddaba waxaad ku baraagtay garaysid ayay ku xidhan tahay. asxaabta waxaan igaga tegayaa maskaxda ku dadaala. maskaxda ha la kobciyo, maskaxda aqoon ha la baro, maskaxda kor ha loo qaado, ha lagala kaco qabaylnimada iyo maxaynimada, ha lagala kaco, wax ha la baro. sidaa jirhkaba ugu dadaalno, sidaan jirhkaba cunto u siino,
sidaan ruuxda cunto u siino maskaxdana cunto la siiyo bishana waa bishii ruuxda cuntada la siin lahaa waa xikmadda ilaahay u soo dejiyay waxa la yiraahdaa inaad ka joogsatid cuntada inaad ka joogsatid maxay ahayd waxyaabaha qaladaadka oo dhan waa xikmadda inaad naftaada xakameyn karto waayo nafta mar waxa lagu tilmaamaa waa cadowga labaad marna waxa lagu tilmaamaa waa cadowga koobaad ee naftu leedahay hadana waa nafta nagu jirto sida daraartii ilaahay wuxuu keenay xarko ama xakamo lagu joojin karo waxa kamid ah soonka oo bisha hadda ku jirno laga faa'iideysto waa waqtigii la naaxinay cuntada waa waqtigii la siinay qoodka waa qoodka cuntada waa ruuxdii cuntada waa cuntadii ruuxda andhaho waa waqti cuntada la naaxinay waayo shaydaankii ayaa laga xiray waxa lagu dhahay naftaada hadda qoodi naftaada hadda naaxi naftaada hadda dhargi cibaadaadka waa lagu laban laabayaa salaada waa lagu laban laabayaa marka nafti baa la naaxinay iimaankii baa la kicinaya macna iimaanadii yeelatay waxay ka dhigantaa naftaadii ayaa cayishay naftaadii ayaa nafaqaysatay naftaadii ayaa weynaatay naftaadii ay awood yeelatay kadibna shaydaankii la soo sii deynaya adiga shaydaanka loolanaya niga dhaxaynayo maadaama naftaadii la naaxiyay iimaankii kor lagu qaaday waa inaan loolan adagaas la gashaan haddaba waqtigan ku jirnana waa waqtigii ruuxda saddex qaybood ayaan u qaybinay mid waxaan dhahnay waa jid midna waa maskax midna waa ruux mid kastaba cuntuu leeyahay hadba waad kala cuntaysiisid baad faa'iidadiisa helay haddaad jidhka cuntaysiisid waxaad noqonaysaa qof bilic qurux badan oo dhar labisan oo weji dhalaalaya haddii aad ruuxda cuntaysiisid waxaad noqonaysaa qof iibaan leh oo alla ka casbi leh oo xumaanta ka joogsada oo xaqa markastii ku dadaala beenta iska ilaaliya khiyaanada iska ilaaliya madmadowga iska ilaaliya oo daacada ayaad noqonaysaa haddii aad maskaxda korisidna meel kastoo aqoon la isweydaaranayo ama meel kastoo maskax ay ku hadlayaan maskaxuhu ku doodayaan ayaad ka dhex muuqanaysaa waxaan nigaga tegayaa maalintu hay nii wacnaato Ramadaan Kariim والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.